habeenkii xalay ahaa hotel Sudan ee magaalada Berbera waxaa lagu qabtay xaflad aad u ballaaran oo lagu soo dhaweynayay ardaydii secondary-ga ee ka qalin jabisay sanad dugsiyeedkii 2021 2022 kuwaas oo xilligan u diyaar garoobay sidii ay jaamacadaha u geli lahaayeen. munaasabadan ayaa haddaba waxaa u qabtay jaamacadda Golis laanteeda magaalada Berbera. waxaa ka soo qayb galay ardayda sanad dugsiyeedkaasi 2021 iyo 2022 dhameeyay dugsiga sare, iyadoo halkaasi jaamacadda Golis ugu soo bandhigtay fursado qaali ah oo xilligan yaala jaamacadda Golis oo ay ka mid yihiin culum kala duwan oo xilligan ka diyaarsan jaamacadda iyo macallimiinta leh. haddaba munaasabadan waxaa halkaasi ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Golis laanteeda magaalada Berbera Professor Naasir Xaaji Cali Shire, isagoo ardaydaasi si diiran u soo dhaweeyay. waxa aanu kula dardaarmay in ay ka faa'iideystaan waqtiga oo ah in aad adigu jarto ama inuu isagu ku jaro. waxaanu u sheegay inay ku jiraan xilligii cudoona ee waxbarashada furiyaashiisa ay siteen. waxa weeye maanta maxaa tahay? maanta waxaad beertay oo la rabaa inaad iniin ku rido waxaad mustaqbalkaaga berito abid aad noqon doonto. waxaad noqon injineer, waxaad noqon nin dhaqaalayahana, waxaad noqon doontaa qof ku takhasusay waxa loo yaqaano maaliyadda. waxaad noqon doontaa berito oo maanta laga rabaa inaad go'aansato. waxa maanta aad go'aansanaysaana waa midhaha aad beerayso ee berito aad noqon doonto. marka labadan marxaladood waa kala jaad. marxaladii koowaad wax waajibaad oo ku saaraa ma jiro, laakiin adeerayaal maanta oo aad kala dooranaysa mustaqbalkaaga halkaad digaysaa waajib baa ku saaran, waajibaad baana kugu waajibay. waxa weeye haddaba berito xaggaad tegaysaa? berito waxaad noqon doontaa qofka laga sugayo, waalidka ka sugayo tacabkii uu ku geliyey inuu inaad soo celiso. waxaa tahay qofka berito adigu wixii aad ummadda la dhex tegaysay inaad barato. waxaad noqonaysaa qof ka muuqda dadka. waxaad odhan doontaa jaamacaddan ka soo baxay, digrii baan sitaa. waxaad arki doontaa markaa in ay ku gashay inaad mujtamacii iyo bulshadii aad ka mid noqotay. aad uga fakera jaamacadaha iyo kuliyadaha aad gelaysaan, aad iyo aad uga fakera oo jaamacadda ku habboon ee aad cilmi iyo aqoon ka baranaysid, tacabkaagii lagu geliyada bixin ka maalin midhaheeda aad ka guran karayso. taa gala jaamacaddaasi. annagu waxaan u haysanaa haddaan reer Golis nahay inay tahay jaamacadda loo yaqaano Golis University qaybteeda bare ee idila soo halgantay oo halkan shalay iyo idinkoo ibara bilowday isla markaa ku xigtay maanta samaysay kuliyadii ugu fiicnaa, beritana aad noqonaysaan kuwii ka qalin jabiyey ee ku faani doona insha taala. macallimiinta sare ee jaamacadda Golis ayaa iyaguna xafladaasi xalay ka hadlay. in ardaydii gobolka Saaxil ee ka soo baxday secondary-gu ay maanta ku soo dhiiradaan inay yimaadaan iyadoo ay sharfayso jaamacadda Golis University farceeda Berbera, iyagoo ogaaday chanceska yaalla jaamacadda Golis haddii ay tahay kuliyadaha artska iyo haddii ay tahay kuliyadaha science-ka, iyadoo taasi markhaati cad ka tahay sanadkan maanta la joogo iyo sanadkii hore oo aan laba qodob daliilada ka tusi doono oo saaxadda maanta yaala Soomaaliland. sanadkan ardaydii dalka ka baxday ee garaajgareysay bachelorka waxay Soomaaliland u samaysay scholarship iyo waxbarasho oo heerka labaad ah. dhammaan waxa dalka ku guuleystay 50% ardayda jaamacadda Golis, haddii ay tahay kuliyadaha medicine-ka, haddii ay tahay kuliyadaha artska, haddii ay tahay kuliyadaha technology-ga, haddii ay tahay kuliyadaha culumta. baa dhici doonta aad ka sheekeyn doontid chanceska maanta lagu siiyey Golis ku siisay, oo oran doontid maanta cilmiga nagula hadlaayo maalin maalmaha ka mid ayaa lagu siiyey si free ah. marka waxaan idinku rajaynahay in aqoonta uu qofku una ka daalin, wuxuu qofku wax ku yahay waa intuu aqaano. waana laga bixi doonaa barnaamijka odhanaya habka qabiiliga. kabtan Yuusuf Caluur oo ka mid ah odayaasha magaalada Berbera iyo wasiir hore Cali Maxamed Cilmi ayaa iyaguna ku ammaanay Professor Naasir Xaaji Cali Shire
dadaalka badan ee uu soo geliyey sidii ardayda reer berbera ay jaamacad u heli lahaayeen sida oo kalena waxa ay dhalinyaradaasi ugu baaqeen inay wakhtiga ka faa'iidaystaan kana qayb qaataan jaamacadda golis aqoonta sare ee taalla hargeysi waxayna oran jirtay xagaad ka timi berbera waa xamaalintii ciyaalkii xamaalinta loo jiray maantana waa aqoontii maanta weeye runtii wax lagu duco iyo abaalmarinba uu leeyahay waanu ku mahadsan yahay ninka runtii waxaana qolada deegaanka ama ragayga magaalada jooga ama xildhibaanada ayadan ama laftaga xildhibaan horaan ahaayeen inaan soo shaqaynay hayd runtii wax tacab badan oo u geliyey kumaanu caawin laakiin insha allah intii tamarteeda waan dadaalaynaa gabagabadii waxaa halkaasi jaamacaddu ay abaalmarino qaali ah oo isugu jiray waxbarasho bilaasha moobilo iyo agab kale oo kala duwan oo aad u tiro badan ay guddoonsiiyeen ilaa 60 arday oo ka mid ahaa dadka ka soo qayb galay munaasabadaasi taasi oo ay jaamacaddu ugu talagashay in ardayda ay ku soo dhaweyso mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka Somaliland berbera horta fursadda iska dayacina ardaynimadu waxa weeyaan inta lagu ogoliyo shaarka qalinka iyo wax kasta in lagu siiyo waa fursad dahab iyo wallahi inaad duweelin markaad weynaataan garan doonto taa horta adeer hayaal iyo awooyaal hadda yicina hawaan kula dardaaraya qodobka labaadna waxa weeye jaamacadda nimanka markan dhagay xasan oo deelis isduwihii ku-xigeenkii gobolka ayaan dhagtay saaro waxaan warin saa ka baxay sanadkan gobolka saaxay 800 oo arday in ka badan baa gobolka saaxay ka baxay 450 berbere gudaheeda ka baxay soo xasan ay ka meen 450 kiini waxa laga doonayaa waxaan gobolada kala tagin deena wax barataaro jaamacadda camirtaan isduwa ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxil xasan maxamed guuleed iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada berbera xildhibaan maxamed xaaji maxamuud badhar ayaa iyaguna si qoto dheer uga hadlay waxbarashada iyo faa'iidadeeda iyagoo iyaguna dhankooda si weyn u ammaanay jaamacadda golis iyo weliba professor naasir xaaji cali shire waxay awoodda saaraysa wasaaradda waxbarashadu waxa kow ka ah in la helo boqolkiiba boqol ummad waxna qorta waxna akhrida ummadeennu ama dalkeenna Somaliland cilmi baarisaha la qaaday ee kala duwan waxa la soo saaray in boqolkiiba 740 ay wax qoraan waxna akhriyaan boqolkiiba 53 ka hadhay waxba ma qoraan waxba ma akhriyaan cidda loo baahan yahay inay jahliga ka saaraan ee dadkeenni wax baraan waa inaga assignment baalka inoo yaal qodobka labaad ee ka hadlaya waxa weeyaan waa kan ay noo nimi maanta oo xafladan ay ku saabsantay iyadoo laba qodob oo miditaay abaalmarinaha oo kuwani hor yaala ah oo nigu mahadnaqayna jaamacadda midna waxa weeyaan ardayda freshka shayga koobaad ee looga baahan yahay waxa weeyaan inuu doorto faculty oo aqoonteeda leeyahay gudoomiyuhu berbera kor buu qaaday xilli loo baahnaana jaamacaddaasi way timi midhaheediina wuu ka muuqday magaalada berbera waxa kaloona aad iyo aad aan u dhiirigelinayaa in la helo waxbarasho bilaash ama scholarship sidaa uu sameeyey naasir anigu ilaa 8 arday baan ka bixiyaa jaamacadda golis ilaa alfa waxaan dareemayaa bixintaasi oo ay iga tahay ilmahayga aan dhalay oo kale oo aan fursad helin ugu dambeyntiina ardaydaasi kala duwaneed ee u soo diyaargaroobay inay galaan jaamacadda golis waxa ay ka qayb qaateen bakhtiyaa nasiib oo ay ku helayeen jaa'isado sare oo ka mid yihiin moobulo casri ah scholarship bilaasha ama waxbarasho bilaasha oo jaamacadda ah iyo weliba agabyo kale oo qaali ah وياسين شامع علي تلفزيون كعالمي آه برشة تيفي مقالة بربرة